soo dalaaqada labaad saas ku baxday maxaa u hartay hal dalaaqa u hartay miyaan facaysa camal iga wad camal ninka ma u dul qaadan karo mugtaa cunuguusan dhalin ma u dul qaadan karo naagtin uu rabaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دبادة جنة الكية مريم مجوي وأنا جن مريم ورانا دي جنة الكعسب تسيد عادي إنه سبسكرايب إيسار لايك إيسار كومنت إيسار قر شير داس حتى وشير جري ما أنتوا وحايدين وذا رياكشن بحنينا رياكشن وحاك بحنينا فيديوهات أكو أركي تيك توك إن شاء الله إذا كان إنها إلى ركتان أو واحد بدنا كفائدة أنا واحد بدنا كفائدة وحرجينا إذا كان سيد وكلنا واحد بدنا كفائدة إن شاء الله isla daawada muuqaalka inta idin soo saaraan isla daawana marka sida kala rabay inaan idin sheego marka waxa guriga burburitaankiisa waxa jira nin iyo xaaskiisa waa isku fiicnaayeen laakiin markasta waxyaalo maala yaani la isku qabsan jiray maalin ninka soo gal wuxuu u baahnaa qado u baahnaa ay tiri qado u baahnaa gabadhan TV iska fiirsanaysa markaas waxay qado waa diyaariye xaggaas u yaalay or soo kuleysay markaas qado soo kuleysay qadii kan TV gina ka kacday markaas tiri waa ku sheegay xaggu yala waxaan fiirsan barnaamij fiican iga tahay wuxuu wallahi da ikiino soo ku furo sayno fiiris kibir qarqad waxa uu adeeg yahay kastii furto qado la isku furaya qado ikeen leewaya xaaskiisa wuxuu dhahay qado ikeen ayadana waxay dhahay xaggu yala qado ay kulnayso asna wuxuu dhahay walaa waa furo kulaha asla daawan cajiib taasaan kula soo tuurbo akaas asna wuxuu sameeyay bam waa tuure afranta ay wadahay furitaanka markuu dhaco furinkii wuxuu noqday wax yariis oo easy fudud wax ikeen qado ikeen xagu yaala soo qaad waaya hadii kale ku fura wixii soo qaad la dhahayo furinkii u furay gabadhii isla si soconayna isla wadan shaytaanka waa baxa waaqica lagu noolaana qof walba uu shalayna kelmad furitaanka waa culus tahay afka laga dhaho marka tiraahid waa culus rag badan oo naagahooda mar badan furay gabdho la fawar wallahi waxay kuleeyeen fur markii uu dhaco ninka wuxuu markaan dhaho waxaan dareemaa shalaytada adduunka ugu weyn ay u dhacdo markaas oo baan waxa arkay subhanallah bismillah badanaagada arkay laakiin kibirku wuxuu diiday inuu sheego markaas iyadana waxay ku leedahay markii ii furo hooshees xataa way joojinaysaa ma qaban karto dhibaatada gaartay la injiligeeda marka furitaanka labada qof oo dhaawac u tahay gabadhii marka ilmihi waa la wada fariiso maxaa dhacay dad aqli leh baa hayna tii soo wada fariisteen okay qalad maxaa sameeyay isku noqon hay oo isku noqday xeer kadib hadana waa tookadan oo basday ahayd ninka banooni u fiirsanayay aska taqaanaa nimanka banooni ma kiifaysa ma jecel xataa in laga warshaay keenona xogta shay kan TV fiirsanay soo fiiris kala dasha cabaysid shay kan mukina markaas wallahi day kiini soo ku fur markaas tookada asaas u furtoona ogtina ka shalaysay wuxuu tookada iska hilmaamay kiini soo ku fura makiinay tii la wada sida ku tuur dahe saddex dalaaq been ku bixirta marka waad muxuu ku furay raashin ikeen waxay dhahay raashin jikada ku yaala soo qaado kulleysay cun wuxuu dhahay soo qaadanaya ikeen hadii kale ku fura hal dalaaq saas ku furay waa la heshiisiyay way isku soo laabteen hadana marka la shaah ikeen u dhahay waxay dhahay shaahi waa kaaga soo qaado sida camal ay dhahdaadi ayadana war maqlaysay marka wuxuu sameeyay waa ku fura shayga da ikeen weyse marka hadana wuxuu dhahay shay hal ikeen sidii kale soo og hadaay markii hore tookadii hore inuu ku furay raashin ikeen ee dhahay raashin jikada ka soo qaado wadan wuxuu dhahay shay ikeen hadii kale ku fura soo ayadana waxay dhahday shayga sidii ugu jawaabtay soo dalaaqada labaad saas ku baxday maxaa u hartay hal dalaaqa u hartay asla socon insha Allah ajaayib afranta bila macna la isku furay fiiri ولا فريس قبل وفريس نينكي تيجي ودمي وداوا ودمي حد عملك سوى حجران ولا فريستي حد هدا سوق هذا لهاد تي في ودمي دو سوق هذا لها شيء كذا ولا ما لهاد إذا هدي وكاني لهاد تيجي هذا وسوى أديك لهاد شيء كذا ولا سلام مجري لهاد مركز ولا فريس حاليا مقال وأختار وصوب نقطة قتي قبل بحيث الفروتان كأني يدي هذه منه حتى غير مسؤولة أنا كان قاضي كين استاهل كيسوا because أسا وحي ريسو قبل كفره marka ayadana waxay dhahay furitaanka inii dib baad waxa qeyr mas'uul ah tahay istaahilkiisa ila in shaah iyo soo qabo
ee ku dhahay shayga xaq jikadu yaalay soo qaaday mise maxal lahay darmuus ka shubo saas ma dalaq ku deynay istaahilkiisa waa isla soconishaan mar labada xabba bila macna ku tuurtay ee mas'uulaadka keen furitaanka xilmaana hayna waxay tirmay bis martan lagu maaminay waaye sidii marka uu dhiibay isbuuc kama soo wariyeen kala la isku qabsaday saami sameeyay Soomaaliha ninka xalaqal ee ka saddex mar uu ku celin jiray iyada waa saaru qabal u tuurtay alas qabsay waa tuurtay saddexda meesha ku dhamaatay hal gabar yarna waa joogtaa gabadhii la isku qabsaday markii sida kala rabay inay idin sheego alas saxaabay hadda waxa dhageysan part 1 sideed part ka kooban yahay wiilkana la soo dhigay la dhahayo nidaam online wiil la dhahayo TikTok soo dhigay had part 1 dhageysan part 2 dhageysanina markaas la socon soo tuurtay saddexda meesha ku dhamaatay hal gabar yarna waa joogtaa gabadhii la isku qabsaday markii gabadhii markii la isku qabsaday ninkana qaadanay gabadhana qaadana almuhim familka soo dhaxgalay waxa la yiri gabadha hooyadeed u daa ninkii sidoo gabadhu ugu daay hooyadiis ugu daay hooyadeed ugu daay waxyar kadib ninkii gabar yar waa la soo doontay inna soo doontay waa la guursaday ninka cusub inniis uu dul qaadan kara laakiin ilmo kale ma dul qaadan karo xooga markii la joogo wuxuu hebla maqal aniga adaan ku aroosay gabadhan wax ma ii keenay inay gabadhan guriga family leedahay hadii agoon xaalata laakiin family-keedu uu yahay maxay kari gabadhan kaas wuxuu ku tirniyo way barbaray abadan wuxuu yiri aniga intaan ka badan ma joogi ama aniga ma iida wax labaas door ama gabadha kula joogto oo kala tagayna ama gabadha family-keedu uu geey hadii agoon tahay laakiin family leedahay aabbe leedahay adeer leedahay idila ii uu geey gabadhi marka marhabta ninka hore inuu ninkeedina u celi sooro hooyadeeda u geeysa gabadha 4 sano jirta hooyadeeda u geeysa hooyadii marka waxay weys baadiila baadiye gabadhi marka xooga meesha wax ku soo baratay iskuulka ku soo baratay waa soo baxday magaalooyinka mid kamid ah maanta weyn jaamacad gashay gabadheeda jaamacad baratay nin isbartay ninkii oo isbartay uu soo doontay baayidri gabadheeda fiska fiican ayida si fiican soo tarbiyay diin ku soo tarbiyaysay aabaheeda wacdini kana jiro wuxuu beela waa ninkaas $5,000 keeno markaas $5,000 waa ninka uu sheegtay wuxuu yiri $5,000 ana abayna siiyo mehri waxa saan siiyo ma awoodi ma salaam ninkii labaad nafsi tariiqa ninkii saddexaad sidoo kale ninkii afaraad sidoo kale ninkii shanaad sidoo kale shan nin sidii ku fashilatay guur gabadha khalaas waa niyajabtay waxay go'aan ku gaartay inaysan guursan waxay u tagtay marka masaajid uu joogto maalna sheekh isla kulantay sheekh wuxuu u sheegtay sheekh waan wuxuu guurka waa sunnatul hayaa waaye aabaha iyo hooyada anaga la xadleeyno aabiha la wacay abadan uu soo istaagay shanta kuna daliisina wilaayada ma bixina ninka la soo doontay wuxuu yiri ninka uu soo doontay aniga keen nin isbartay ninka la hadlay wuxuu aniga soo dir ana weligaaga ninkii uu yimid aabiyo la dhaxay maqal si kas sheekh uu kali waayay wuxuu waayay shantada kuma lagu siina hooyadii hooyadan waxay aabba ma la siina ana waa la siina shan hadii kale ku inkaara gabadha waa naxday sheekhi marka wuxuu yiri maqal ninkii wuxuu yahay gabadhan waa rabaa runtii waa diinteeda akhlaaqdeeda waa cajibisan guursadaan rabaa lacag badan ma hayo wuxuu yiri waayay duqashantiis kun hal siiyo maadaama asiga dan ugu diray wilaayada gacanta noogu ku haayeen shanta sano shantiisa la siiyo gabadha horta waxa lagu dhamarka maqal shantada kuma lagu siina laakiin waa lagu soo yareeyna ballan waa hadii li sii way soo inkaarta ma waxa lagu siinay kaarta ayaa la wili waay asxaabteeda part 2 noo dhamaatay maxaa la dhahay gabadh sidaas lagu furay ninka la aroostay ninka markii loo geeyay gabadhi gabaraysi wadatay wuxuu dhahay maxaa la dhahay gabadhan wadatid miyaan facaysa amal iga wad amal ninka ma u dul qaadan karo mugtaa cunuguusan dhalin ma u dul qaadan karo naagtin uu rabaa saas ku kala hareen hadan ninka la guurstay qisada part 3 video kala soo sameeyna insha Allah videogoodi ku dheeraana sidaas ay rajeena hadii aad ka hesheen qisooyinkan oo kale ii soo sheeg comment igu soo qor badan waa soo gelina insha Allah nawaadiino